السلام عليكم ورحمة الله. نادي ريال مدريد ayaa weli ku madax adag sidii u heli lahaana laacibka Belgiga Eden Hazard ciyaartooyga ciyaara naadiga Chelsea kadib marka ay la waayeen Neymar iyo laacibkii kale Faransiiska ahaa Mbappé. wararkaas oo ka helnay journaalka AS Spaniska inuu Hazard buuxin karayn booska Cristiano Ronaldo si buuxda, laakiin markaan eegno goolasha iyo inta gool uu xareeyay Premier League ayaa mar walba Eden Hazard uu ka badnaanaya ciyaartooyada ka ciyaara naadiga Real Madrid. Isco iyo Alarco iyo Marco Asensio kadib markuu ku guuleystay Eden Hazard midaliyada bronziga ah kaalinta saddexaad ee koobka adduunka ee ruushkii ka dhacay kii xulkiisa markaa weli wada hadal baa ka taagan Chelsea iyo Eden Hazard kaasoo isagu doonayo markaas inuu tago naadiga Real Madrid maqalcada loo yaqaan Bernabeu. haddaba xilli ciyaareedkii hore wuxuu dhaliyay Eden Hazard 17 gool 13 goolna isaga cagtiisa kaga baxday uu soo dhig halku isku ka xareeyay 19 iyo Asensio 11 na dhaliyay. geeskaasi wuxuu kale ka digay Eden Hazard garoonka Bernabeu yimaado in halka ay ka dhici doonaan weerar fara badan taas oo keeni karaysa inuu ka fadhiisto isaguna Eden Hazard sida ay ku dhacday James Rodriguez iyo Alvaro Morata sanadkaas ay joogeen ayaa ka ciyaari jiray BBC garoonka Bernabeu. naadiga Liverpool ayaa 63 milyan oo jiniga sterlinga ay ka khasaaray marka ay doonayeen ciyaartooyga Alexandre Bernat goolwada ah Roma ka ciyaara ahna goolwadaha xulka Brazil ee noqday imika goolwadaha adduunka ugu qaalisan. wargeyska Mirror ee Britanka ayaa sheegay inuu Liverpool soo qaatay goolwadaha kuna soo qaatay qiimo ah 67 milyan oo giniga sterlinga. waxa uu lumiyay fursad aad u qaaliya markii goolwadahaasi uu ciyaari jiray Internacional Brazili ee Liga Brazila sanadku markuu 2015 oo barigaas Liverpool uu kari karay inuu soo qaato ciyaartooygaas waanu doonayay laakiin uu ka habsaamay haddana wuxuu noqday imika goolwadaha adduunka ugu qaalisan. imikana qasaa'intiisii oo dhan iyo lacagihii oo dhan buu ku horay goolwadahaas sidii uu soo hanan lahaa. imikana uu ka noqday goolwadaha asaasiga ee xulka Brazil. naadiga Leicester City ayaa deeday hadda ciyaartooy ka ciyaara halkii uu ka ciyaari jiray Riyad Mahrez halkaasoo Riyad Mahrez markaa uu la heshiiyey Leicester City lacagta la soo siistay markaa qiimaheedu ahayd 60 milyan oo jini sterlinga. halka wargeyska Litin Sport ee Faransiiska ah uu noo sheegay Leicester City inuu doonayo markaa inuu heshiis la galo ciyaartooyga Aljazairiyanka ama Algeria Rachid Ghazal ee uu ciyaari jiray markaa naadiga Monaco ee Faransiiska. waxa kale wargeysku noo sheegay in heshiiskaasi kalifi karayo Leicester City lacag aad u badan ilaa 8 milyan oo euro. haddaba ciyaartooygaasi oo 26 jir ah 35 ciyaarood ayuu ka qayb galay sanadkii hore waxaanu dhaliyay 2 gool iyo 4 baas oo sax ah. haddaba Kovacic ciyaartooyga Real Madrid u ciyaari jiray ayaa laba naadi isku aastay oo waaweyn oo Ingiriis ah labadaas naadi ah Liverpool iyo Manchester United sidoo uu soo wareegi lahaa xilliga xagaaga ee kala iibsaday ciyaartooyada kadib markuu Sani uu codsaday ama cadeystay inuu doonayo inuu ka tago naadiga malakiga ah ee Real Madrid. wargeyska Marca ee Spaniska Real Madrid ayaa dalbay markaas 45 milyan oo jiniga sterlinga sidii uu iibin lahaa ciyaartooygiisa Croatia ah naadi walba uu ahaadaba kadib markuu ka dalbaday General Balotelli oo baraa cusub ee imka Real Madrid wada inuu ka tago naadiga. kale wargeysku ku sii daray in naadiyada Manchester City, Bayern Munich iyo Juventus inay tartanka kula jiraan si heshiis loola gali lahaa ciyaartooygaas ay la soo wareegi lahayn. ciyaartooygaas oo aad ogtiin koobka adduunka wacdaraha ku soo dhigay xulkiisii Croatia helayna isla markaa kaalinta labaad ee koobka adduunka. Mario Kovacic waxa iska soo daba dhacaya soo bandhiga iibsiga ciyaartooygaas inuu ka tago Camp Nou xagaagan suuqa kale iibsiga kadib markuu ku soo caan baxay koobka adduunka ee Ruushka sanadka 2018. wargeyska Ingiriis ayaa cadeeyay in ciyaartooygaasi naadiga Wolverhampton hogaanka u haya Championship-ka iyo imika ka soo baxay ee Premier League ku soo biiray Yaramina uu heshiisna kala soo wareego naadiga Barcelona. heshiiskaas oo ah amaah muddo sanada halka ay garab cararayaan laba naadi oo waaweyn oo Everton iyo Tottenham ay u soo hanan lahayn ciyaartooygaas. waxa kale la sheegaa in Yaramina uu ka soo qayb galay ama uu ku soo biiray markaa naadiga Barcelona wareegii ama suuqii kala iibsiga xilli xagaag kaasoo ka yimid naadiga Braziliga Palmeiras ee Brazili. naadigaas haddaba difaaca Barcelona ayaan tababaraha hadda wada naadiga Barcelona aanu line up ka dhigin marnaba garoonka Barcelona taasana keentay in propagandadaas la soo bandhigo inuu ka tagayo El Camp Nou ama naadiga Barcelona. laacibka Mesut Ozil ayaa aamusnida ka soo baxay kadib marka baraha warbaahinta la soo dhigay sawir uu leeyahay kaasoo uu kula jiro madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan. sawirkaas oo isla markaana u keenay sababo fara badan oo dhib ah dhinaca ciyaareed iyo dhinaca siyaasadeedba. aanu sheegay baraha Twitter-ka uu ka cadeeyay Mesut Ozil in Chance la siiyay hadda uu ka yiri barta Twitter-ka inuu
asalkiisu uu yahay turki isla markaana kusoo koray dalka Jarmal taasoo markaa tahay in uu sheegay uu kusii diray hadalkiisaasi inuu laba qalbi uu leeyahay mid uu Jarmal yahay midka kalena uu Turki yahay taasoo hooyday mar walba igu soo korisay in aan ictiraaf siiyo mar walba Turkiga oonani ilaawin marnaba halkan ka yimid waxa uu kale ku sii daray waan ogay buu yiri sawirka aan la galay madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan in warbaahinta Jarmalka ay ku lahayd celin aad u fara badan halka dadka qaarkoodna ay igu tilmaameen beenaale ama khiyaamo leh sawirkaas ay arkeen markaas la xidhiidha ama doorashooyinka midnaba muu lahayn dabadaawada su-aasha caawa aan ku hayno channelka Laacib Sports waxay ku sheegaysaa ay ku leedahay ma kula tahay Mesut Ozil inuu ku qaldanaa sawirka uu la galay Rajab Tayyip Erdogan kasoo bixi كومك iyo ra'yiga channelka Laacib